السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله بفضله ومنه وإحسانه مارت وقال شيء سانكو هذله إنه الله سو مارت أول آخر مارت بن آدم نقدقي سأوك لقرنا مارت محاسحا محاقلدا محا أسو جوكتي محا هذا كون مغنيا محاقلدا مي maxaa caawa inaan kuu sheego oo aad igu xasuusatid keliya aan kaa rabo xasuus bis aan kaa raba wax kale kaama rabo waa marka hore qodobada aan ka hadlayo horta waa iska tira badan yihiin warkayguna macnaha war meel ku qoran maaha waa war qalbigayga ku qoran waxaan rabaa marka inaan marka hore idiin sheego 2021 ninkii doorasho sugaya hal sano ma jiro gu ma jiro hal gu ma jiro caawa igu xasuuso farmaajo madaxtooyada dhexdeeda maraayadaha ku yaala iyo Soomaaliya isku sii u yaqaana wallahi ma kugu daray laakiin waa ku ta'kiidinaya in aniga Jamaal igu xasuustid ma aha New York Post ma aha philosophy jaamacad ka soo baxay ma aha odayga Soomaaliya taxliiliya aniga Jamaal ha ku sheegay wax doorasho oo dhacaysa lama arko doorashada muqdisho waxay noqon doontaa dhowr kun oo wiil oo magaalada muqdisho jeedkeeda taagtaagan ee bistoolada iyo qoryo wata kuwaas oo ah kuwa maanta Sheekh Soomo uu ka qeylinay laakiin Sheekh Soomo ma uusan garanin Sheekh Soomo mukuberga nima liiri saas aad mukuberga markaad xurtaysneed oo qeylinaysi Sheekh Soomo mukuberga in wadada nikaax gabar hal laga soo celi gabar nikaaxa la ilaaha illa allah hawi la ilaaha illa allah magaalo waa nabad sugid iyo boolis gacanta hawi waa laga ilaaliyay Sheekh Soomo marka inuu maanta uu baraarugo maba ahaynba nabad sugid iyo boolis magaalo lagu joogaa nabad sugid iyo boolis labadina waa laga qabsaday gacanta hawi waa laga ilaaliyay ma jirtaa magaalada Hargeysa nabad sugid marka noo qorana Sheekh Alaw Xasan marka noo karo magaalada Hargeysa taliyaha booliska ma ka noqon karaan ma jirteen ama dhul baanta asagoo maamulka Soomaaliland wax ku leh ma ka noqon karo dhul baanta xaguu dagaa Soomaaliland xaguu ka yahay taliyaha booliska magaalada Muqdisho Hargeysa ma ka noqon karaa maya Berbera ma ka noqon karaa maya Boor ma ka noqon karaa maya ciladu waa xagee adiga waay waxaan rabaa marka inay yiraahdo nimanka odayaalka ah hawiye xisbiyada haysta ee magaalada Muqdisho jooga ee deegaan ay ka tayaan aan la arkin madaxweynaha raba hadii qaylo iyo hadal iyo been wax lagu qaadanayo farmaajo ku qaatay qaylo shimbiraha inta cawska cunta lagu didiyaa bahalka hilibka iyo carunka iyo cawska cuna qaylo kuma tago farmaajo carunka iyo cawska cuna carunka iyo hilibka cuna bahal waay bahalna qaylo kuma tago shimbir beer laga ilaalinayo maaha inta cawska cunto lagu qeylinayo ugaar maaha waa bahal caranku oo haystana waa yaqaanaa qayle ma ku tagaya farmaajo waxaan idin sheegayaa marka dad badan waa la yaabay Jamaal wuxuu noo sheegay waa maxay intuu ka keenay warkan iska haysa adi ii hay iguna xasuuso wax doorasho u dhacay male wax doorashada ciidanka maantay xanin buura ku xareysan ciidanka maantay baar dheer ku xareysan ciidanka maantay harqababo ku xareysan ciidanka maantay magaalada ku tababarmaya ciidanka meelaha la wada celinayo ciidankaas ayaa farmaajo tababarkiisa iyo doorashadiisa uu ku qabsanaa doorashada waxa uu yaqaanaa jidku ma ii xiran yahay wax socdo miyaa jira maya la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah waxaan rabaa marka qodobka saddexaad warkaygu waa qobanay inaan ku darsado dowladii Soomaaliyeed ee Sheekh Shariif madaxweynaha ka ahaa badda Soomaaliyeed laga wada hadla markii la yiri qalfoof badeeda 350ka qalfoof badeedka Soomaaliyeed nin walba ha cabirto Kenya iyo Soomaaliya markii la yiri ee dowladii Soomaaliyeed ay tiriya iskale annaka iskale ka wada hadleen nin ma jeerteen ayaa ka hareeyay wasaare Sheekh Shariifna madaxweynuhu ka ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuurna wasiirka qorsheynta ka ahaa dambigii maanta waxa iskale Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif waa baddan Soomaaliyeed annaka dowlad ka ah annakaana ka hadlayna nagala hadla xasan sheekh
ayaa badda soomaaliya dacwadeeda geeyey dowladda kenya waxay tiri iyadoo ku maxkamadda u dacwootay waa in badda soomaaliyeed dacwadeeda aan la furin dowladdii xasan sheekhna waxay ku adkaysatay dacwada badda waa la furayaa markii lagu heshii waayey maxkamadda adduunka dowladahan u dhexayna hay tiri annaga labadiina ku soo heshiiyey in dacwada aan la furin kuma heshiinayno xasan sheekh wuxuu ku guulaystay in dacwada la furo maadaama soomaaliya iyo kenya ay ku heshii waayeen dacwada in la joojiyo ma waxay kula tahay kenya keliya inay ku heshiisay dacwada in la joojiyo maxkamadda heeg awood uma laha in dacwada la joojiyo awood uma laha in ay dowladda kenya keliya joojiso ilaa dowladda soomaaliya ay wax ka ogolaato dowladda soomaaliya way ogolaatay in dacwada la joojiyo waddaniyiin waay xasan sheekhna wuxuu diiday oo kenya ka diiday in dacwada la furo dib u dhig ma loo dhigaayo xasan sheekh waa dambiile baddan yaa iskale waa laga wada hadlayaa qalfuuf badeedeeda dowladdii sheekh shariifaa ka hadashay sheekh shariif waa dambiile kumbaleedle dacwada ha la joojiyo ninka saxiixay ee u diray mahdi amxaar iyo dadka lamidka u diray meeshii liije holland oo maxkamaddu ay ku taalna intaasaan horta kala nahay waa inta cawska cunta iyo inta carunka cunta mar kasta inta cawska cunta inta carunka cunta waxaa actifsan inta carunka cunta ma laga yaabo bahal hilibka iyo cawska cuna carunka cuna hilibka iyo dhiigga bahal cuna ilmihiisa in si bilaa macnaa loo dila lagama yaabo laakiin inta cawska cunta ilmahooda si sahla loo dilayaa sida hawiyaha si sahla loogu qaldi karo sida hawiyaha allah meel ay ku qorantaho lambar 4 inta la siibay sanam la saaray iyadoo laga qaldayo laga weecinayo dacwada badda oo lagula heshiiyey kenya in la joojiyo kenya awood uma laha ay keligeed maxkamadda heeg ku tiraahdo iyadoo aan loo wada dhammayn dacwada joojiya maxaa yeelay maxkamadda heeg kenya iskama laha labada waddanoo ku dacwooda dib u dhigi kara arrinka iyada hawiye maxaa ugu meel dhigan maxaa ka fahamtay maxaa ka aragtay maxaa ka og tahay ma laga yaabaa oday hawiyaa oo muqdisho jooga inuu laba oday oo reer puntland oo is haysta inuu wax ka yidhaahdo ma laga yaabo laakiin odayga daarood ee jooga maaragtay buuhood la jooga ama puntland jooga wuxuu leeyahay weliba si gafa dadka madaxweyneyaalka sheeganaya baagamuudada ee kismaayo isugu tegay dani baa wax kaysta ka jira si hoose ha loo wada hadlo waa dooroodnimo ha loo wada hadlo sidaa awgeed ceeb ma ahan in bahalka hilibka cuna aad baratid dhaqankiisa inuu ka actifsan yahay inta cawska cunta hawiyana in laga actifsan yahay aad ogaatid maxaa yeelay xasan sheekh cabdiraxmaan cabdishakuur cosoble sheekh shariif maanta waxay rabaan inay kheyra farmaajo inay qaylo ku diraan ma laga yaabo inuu bahal qaylo kuma tago bahalka carunka iyo dhiiggu cuna qaylo kuma tago waranuu ku tagaa bahalka dhiigga cunahu dhiig daatuu ku tagaa bahalka dhiigga cunahu dhiig buu ku joogaa maslaxadiisu waa in dhiig daataa waa in qof dhintaa laakiin inta cawska cuntaahu cawskay cunaysaa isma disho waa ogoshahay waxa lagu heshiiyey farmaajo waraaq meel taalla ma qabanayso maxaa yeelay 2,000 oo qof oo dhimatay ayuu baabuur 500 garam oo dhiiga asoo meerahay u soo dhigay maxaa gabadha waxay soo qortay maxaa habargeel u sheegi lahayd maxaa abgaal u sheegi lahayd habargeel waxaan u sheegi lahaa dekada hubiyaal idin dhisaa ninka ku dhahaya ee jeebkaaga baaranaya adiga jeebkaaga baaranaya ee dhaqaalaha adiga lagaa qaado kugu dilaya ee dhaqaalaha adiga lagaa qaado ku nool ayaad waxaad ka sugaysaa dekada hubiya inuu kuu dhiso waxaan ku dhihi lahaa marka yaan laguguma weelinin ninbaa fiirshilinta neefka ku dhegan hadday tiraahdo anigaad igu nooshahay waxay la mid tahay inaad aamintid farmaajo iyo eedanagruumada dekada muqdisho lacagta laga qaado ku nool iyo zakariye mariixaan iyo zakariye layla kase ee dekada muqdisho dhaqaalaha laga qaado ku nool in aad aamintid dekada hubiya inuu kuu dhisayo caqli mirir ah ku jira hawiye abgaalna waxaan dhihi lahaa sheekh soomowow adigoo xoortaysanaa farmaajo u dabaaldegaysa adigoo xoortaysanaa xasan sheekh wax ka sheegaysa adigoo xoortaysanaa mar sheekh shariif ku qaylinaysa waxa qaylada wax looga qaata hawiye waaye farmaajo maahane
kitaabada isku soo agmasi waraysid haddaa dad lahaa lahayd sida sheekh idris iyo sheekhii kaloo haddii ilaahay ku roon yahay maaragtay halleys cafiye lahaa ayaa aeroboorka bulud buruf lagaaga soo qaadi lahaa sheekh waa sheekh daarood siyaasi waa siyaasi daarood gabar waa gabar daarood caqli waa kan daarood ku jira inta kale waa eber isaaq marka laga reebo tribal agent halla rana caaw idiin sheegaya teera nin la yidhaahdo yidhaahda oo habar yoonisa ayaa caarre u tegey documentary uu ka sameeyey in somaliland deegaankaas uu xaqiran yahay deegaanka uu ka hadla waa deegaan habar yoonis ninka uu haysiinaya waa nin habar yoonisa muqdishona wuxuu ku caayaa odayaalka hawiye waxauna sheegaa in soomaaliya dowladnimo u baahan tahay oo qabiilka la iska dhaafo markuu caarre u tagana wuxuu ka sheekeeyaa habar awal iyo habar jecle inay habar yoonis xuquuqdeeda haysato maxaa yeele waa soo jeedaa isaaqu waa soo jeedaan waxbay fahmayaan adiga laakiin hawiyaa odagaagu saakuu wax fahmay kuwii dabaadiga saaka sheekh somow saakuu wax fahmay laakiin sheekh somow dalladda culammada soomaaliyeedaan wakiil ka ahay kama qiiroonin allah meel ay ku dhegan tahay inta laga siibo in sanam la saaro waa astaahilaa sheekh somow in kabaha lagu duugo u astaahilaa maxaa yeele dalladda culammada soomaaliyeed asagoo saaran kama qiiroonin magacii ilaahay meesha ou saarnaa in laga bixiyo oo shaaciirta islaamka iyo maaragtay wax ilaahay adduunka ou keeno wixii ugu miisaanka badnaa allah in wiish inta lagu qaado la siibo sanam la suro ayuu sheekh somow ka xanaaqi waayey markaasuu meher u xanaaqi meher laga celiyey godka lagu cadaab caqli xumaa halkan meesha caqligu geli lahay xaaraa ka buuxa caqligan hawiye meeshuu geli lahaa xaaraa ka buuxa haddii culamo yihiin haddii odayaal yihiinba anigoo dalladda culammada soomaaliyeed wakiil ka ah sheekh somowna ah saaka waxaan u qiiro lahaa magacii ilaahay oo la siibay allah 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 oo lambar afar ku dheganaa la siibay allah oo hargeysa ku dhegan inta la siiba sanam laguma dheji karo allah oo ku dhegan magaalo kale adduunka ka mida inta la siiba laguma dheji karo ilaa magaalo gaala qabsatay maahane allah meel ay ku dhegan tahay inta la bixiyo sanam laguma dhejiyeen except meel dadka jooga ilaahay u carooday oo jiran oo faham yeelo waayey oo ciqaabka ilaahay kusoo degdegayo oo fahamkii ku dabagadoomay oo astaahila in farmaajo kale u garaco caqligaa ka dhimateen hawiyow damiirkiibaad ka dhimateen islaamnimadiiaad ka dhimateen dareenkii islaamnimaad ka dhimateen fahamkii ilaahay idin siiyey iyo magaaladii aad joogteen oo magaaladii laga addimayey ayaa magacii ilaahay laga siibay allah markaasaa laga fujiyey astaan meel lagu dhegsado oo magaca ilaahay ka qorxoon waa maxay sheekh bashiir ma ka hadlay sheekh somow ma ka hadlay walle iyo bille iyo tolle in magaalo daarood degan yihiin in nin hawiya inta magaca allah ka siibo inuusa sanam sureen meesha marka garaadkeennu uu la egyahay farmaajo waa kasbeeyey caawa waxay iga qoraysaan marka aniga farmaajo 3 bilood asagoo jooga aniga ilaahay i tusiyey anoo weliba mucaaradsanayn waxaan arkay farmaajo oo aad u sun badan khatar ah maaha telefishin iyo waraaq waxaan ka qartay waa aniga wax ilaahay i tusiyo kadibna waxaan soo qoray inaan mucaarada ka xun waxaan soo qoray weliba afkayga weliba markaas ayadaa aysan qabanin farmaajo wax ka sheegideeda farmaajo masun yara ayaan soo qoray caaway oo 3 sano oo sii gaaray waxaan idiin sheegayaa farmaajo qol miraayada leh isagoo ku dhex jira magaaladana ciidamo ku daadiyey jid kastana askari uu taagan yahay ayaa doorashada la sheegayay xilliga 2020ka maalinka doorashada ay ku aadan tahay sidaasaa muqdisho ka dhici doonta waxaan rabaa marka xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur duur aadin ma idin haray dad cisalay ma degi kartaan ciidanka teer uu xayeysiinayo oo isaaq oo asiga qaraabadiisa oo somaliland inay qabsadaan raba oo uu ku sheegayo deegaankan waa la dayacay waa la xumeeyey oo dhankaa kale yahay dhankan kaleetana farmaajo waa madaxweyne soomaaliyeed waa in la raacaa musuq male xasan sheekh waa tuug maxaa yeelay baddii ninkii dacwadiisa geeyey waay wallaahi ninkaa af badan dhaxalka aabbaha u qaataa gabar hawiyaa hadday leef soo gasho halkaasaa go'an ma hadli karto waa xishoonaysaa gabdhaha hawiye waa buranburayaan waa caysla waxaan ku eri cayrna waxaan ka iri harti abgaal waxaan ka iri haddii ilahay gabdhaha hawiye waa buranburayaan
برامبر waxaan buranbureen maayaan halka gabadha daarood ay siyaasadda ka hadlayso iyadoo weliba xurtaysan oo aan xishoonaynin iyadoo weliba xurtaysan oo hadalkeeda iska hor imaanayo iyadoo weliba xurtaysan oo burus ka baxay aad mali karin marka gabdhaha wiina waa kuwaasa maxaa yeelay garaafka raggooda joogaan ka sii hooseeya gabadha wiiho leefka hadlaysa arkay wax xishoonaysa xishooda ka muuqda afka ma kala qaadi karto laakiin odaga daarood puntland uu fariisanaya wuxuu leeyahay madaxweyneyaalka baagamuudada oo xilkii horeba qalad ku qabtay oo aan kursiga astaahilin oo haddii ilaahay ku reeyay dani baa ka jooga meesha wax haysta si hoose ha loo wada hadlo waa daaroodnimo ha loo wada hadlo waxaan ku sheegayaa marka walaalaheen daarood waxba ma wada yeelan karno wax aan wada yeelan karno male isuma soo dhowaa karno dhulka aan kala yeelanno hadalkooda maanta waxaa idin sheegayaa dhowr sano ayaan waxaan ka hadlayay reer gurceelan la hadlayay cayraan la hadlayay odayaalka reer ayaalan la hadlayay waxaan lahaa war reer gurceel iyo reer balanbalaa wada hadlaya maxaa ka fahamteen war reer gurceel iyo reer balanbalaa wada hadlaya sowgaf maaha war reer gurceel iyo reer balanbalaa wada hadlaya ujeeddada ka dambaysa ma fahamteen maantay fahmeen ay fahmayaan balanbal marka ninka mareexaan ee dhuusa mareeb jooga ee wasiirka arrimaha galmudugtii baaba'day ah oo u samaynaya 20 nimo mareexaan oo gola degaan balanbal maantay afka kala qaadin fahmayaan 4 sano ka hadlayay caawa midda aan ka hadlayana hal sano ka dhiman laakiin ugu xasuuso waa ku qanacsanahay dhowr milyan oo hawiya iyo aniga inaan isla shiidno waa ku qanacsanahay dhowr milyan oo hawiya iyo aniga inaan isla noqono maartay bounty 5 waa ku qanacsanahay dhowr milyan oo hawiya iyo aniga in la wada xiro waa ku qanacsanahay xasan sheekh iyo cabdiraxmaan cabdishakuur iyo cosoble iyo sheekh shariif iyo aniga in la wada dilo waa ku qanacsanahay inteenaas in la wada buriyo waa ku qanacsanahay aniga iyo hawiya tira badan oo sheekh soomowga maanta yimid uu ka mid yahay iyo kuwa badan oo laga daba keeni doono dhammaanteen in ka tarbiilna lagu aaso waa ku qanacsanahay waa ku qanacsanahay wiilal buu hadla laga keeno farmaajo amtaalkiisa inayna dilaan waa ku qanacsanahay in maaragtay waxa maanta layla fahmi waayo maalinta layla fahmi doono inay adkaan doonto wax ka qabasheeda waa ku qanacsanahay godka lagu dhacay inuu god dhow ahayn laakiin waxaan ku sheegayaa wax doorashaha dhacaysa male ninka kuu sheegayo waa jamaal remember waan arkay ilaahay baa i tusiyey farmaajo madaxtooyada ku dhex jira oo guri maraayadale ku jira oo magaalada u diray 5 kun 6 kun oo wiil bistooladii qoryo wata ay wadooyinka taagan yihiin maalinka doorashada aad sugaysid oo qof dhaqaaqaya uusan jirin oo xaaladdu kritik ka tahay oo wax walba kala taagan yihiin warkaas aan kuu sheegayo xasuus u hayso haddaad aaminin xasuus u hayso aniga jamaalaha ku iri si aad sanadka dambe 2021 wixii ka dambeeya aa warkayga u rumaysatid warkaan aan kuu sheegayo aniga ilaahay baa ii sheegay ilaahay baa i tusiyey waa kuu sheegay aniga marka adiga iska haysta marka waxaan rabaa marka inaan idhaahdo 3 dowladood oo mid walba nin hawiya madaxweyne ka yahay laba nimo hawiya madaxweyne ka yihiin 2 nimo daarood ra'iisul wasaarayaal ka yihiin iyo dowladda farmaajo nin daarood madaxweyne ka yahay nin hawiyana ra'iisul wasaare ka yahay labadii dowladood hore waxay dambiilayaal u noqdeen dacwadana geeyay baddana ka hadlay kii dacwada joojiyey ee ogolaasho wadareed ayaa heeg aqbashaa ma aqbasho kenya keliya haddii kenya keliya aqbalayso caqligaaga caqli hawiyaha si aan wax kuu fahamsiiyo xilligii xasan sheekh ayaa dowladda kenya waxay tiri dacwada waa inaan la furin laakiin dowladda xasan sheekh waxay tiri waa la furayaa maxkamadda heeg waxay tiri annaku dacwadaan qaadnaa labadiinu haddaydnaan wada joojinayn hal qola darteed uma joojinayno waxay kula tahay in hadda loo joojiyey dacwada loo joojiyey miyay kula tahay kenya keliyaho dacwota kenya miya adduunka iskale waa laysla ogolaaday ninkaasuu dambiile maaha maxaa yeelay allah ayuu kaa siibay markaasuu sanam kuu saaray markaasaa sheekh soomow shiikhii culammada soomaaliyeed ilhaanada fiiriya qofku markuu mas-uuliyadda saaran iloobo ilaahay waa ilhaaneeyaa gabaraan soo nikaaxa ayaan u socday aasaa waddadii layga celiyey gabaraan maanta wax ogaaday makuu bergaa
الله ayaa la siibay sheekh soomo maxaa soo nikacda magaalada wax ku nikaaxaysid magaci ilaahay ayaa laga baxshay markaas sanam la saari miyaa ka qiirootay qiiradii diinta qiiradii islaamnimo qiiradii deegaankeenna qiiradii dalkeenna qiiradii maaragtay ilaahay waxa uu nasiiyey waxa uu nagu sharfo ugu weynaa ayaa la baxshay sheekh soomo iyo culimada muqdisho joogtaa kama xanaaqin laakiin sheekh soomo wuxuu ka xanaaqay gabaraan soo mehrinayay balaayo mehri oo laba dameer isku mehri oo adiga hal lagu mehersado xayawaan iyo xoolaa qiiro ma lihid ilaahay aad been u sheegtay culamanimada aad mas-uuliyaddeeda sheegatay beenaad ka sheegtay culamo ma ayd xariifaad tahay kitaabadaas aad ku dhinac yaalla waxba kuuma tarayaan ma qiirootid damiirna ma lihid naftaada u carootaa xooluhuna naftoodii u xanuunsadaan sidaa awgeed waxaan rabaa marka inaan idhaahdo reer gurceelow 3 sano ka hor ayaa balanbal mariixaan yeeshay markay dhaheen oo adinka qaar idan ka mida ay u sheegeen balanbal iyo gurceel cruise missile miya 90 kilomitir balanbal gurceel u jirtaa maalinkaa duulaana ree ayaan low cayrow maalinkaa duulaan ku ah balanbal maalinkaan deganayn madnuur cali barraan ku dhalan ma cali barraan guddoomiye ka noqon ma magaaladan kala barre ayaa la deganaya cayr ma deegaankaan ahaan jirin deegaan la wada degan yahay goormee mariixaan yimid nin walba hawiyaa marka waranka uu ku wada tago oo yidhaahdaa waana isku wada nuuc ama gurceel ha joogo ama godinleb ha joogo ama ha joogo meesha ugu dambayse waxaan rabaa marka inaa idhaahdo xasan sheekh iyo sheekh shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuurow haddiidna 600 wiil aydnaan isku darsan karin aniga caloolxumaa igu dilaysaan qaabdaraana u dhimanaysaan anigana barordiiqdiina halkaan ka wadayaa inkastoo hadda ay soo dhowdahay barordiiqdii cabdiraxmaan cabdishakuur 2000 December 17 waa barordiiqdii qaybtii koowaad waa dhacday waa la diiday inuu xataa barordiiqda ka hadlo tii saddexaad waaye sanadkay dhacday hal sanaa ka soo wareegtay sanadkii labaadna maanta waaye waa sanad guuradii labaad waxaa ka dhiman bil cabdiraxmaan cabdishakuur soo u xusaan arkaynaa dadkii laga dhintay 5 qof oo meeshaas ku dhimatay intay dhaleen intii la dhalatay iyo intay la sii dhasheen keliya haddii barordiiqdaas xusto xataa waxay qiimo u tahay kuwa damboo la dili doono ninkii kaa dhintay kama hadli kartid ninkii ku yidhi ayaad waxaad rabtaa in dastuur iyo sharci aa kula dhaqantid ma arkaysid dastuur sharci aa kula dhaqantid maxaa loo waayey walaalaha daarood waxay ka siman yihiin inay u hadlaan sida sambalolshe laakiin sambalolshe waa dambiile maxaa yeelay wuxuu ka dhashay musqulow ka dhashay hawiyow ka dhashay ninka hawiya caaya oo u gafa ee dembiga ka gala farmaajo bullad burufuu ku soo dhoweeyaa qaadiid xamar markuu tago waa la soo dhoweeyaa shiikha daarood markuu xamar yimaado eeraboorka laga soo qadaa madaxtooyada la geeyaa shiikh soomow muqdishaan ku dhaldhay muqdishaan jooga iyo gabar soo nigaax magaa lay celiyey ilaahayna beenaad u sheegtay culamo maahayd oo haddaad culamo tahay waxaad ka qiiroo laheyd allah magacii ilaahay la siibaayo ayaad ka qiiroo laheyd kama qiiroon reer muqdisho kama qiiroonin magaca ilaahayoo la siibay nabadna waa rabaan qarax inay ka badbaadaanay rabaan inay ilaahay u gargaaray rabaan fursadaa soo martay maanta reer muqdisho fursadda soo martay waxay tahay magacii ilaahay meesha laga bixiyey inaad goobjoog ka aatid markhaati ka aatid welina aad heesaysid qofka bixiyeyna aad ogaatid in qolo gaalaa u sheegtay qasamiya yuhuud maa qabsatay muqdisho ma yuhuudaa qabsatay gaalo kale miyaa qabsatay muqdisho see magaca ilaahay meel looga bixiyey see masaajid hortii sanam kale loo saaray haddii sayid maxamed oo ingiriis la dagaalay ciidiidba wuxuu la dagaalay maraykani aawo taaladiisii farmaajo ma garteen beesha habar gidir maxaa loo saari waaye ciidii taalo loogu saari waaye maraykani ingiriis waa isku hal waa laba gaal maxay isdhaamaan ma loo saaro taalle ciidiid reer gaalkacyo ma u saari doonaan taalle ciidiid sacad meelaha ay joogaan taalle ciidiid ma saari doonaan taalle cismaacata ma saari doontaan
waxaan rabaa marka inaa idhaahdo qabyaaladda aysan ka xishoonin kuwii waxooda yeeshay ee adigu aad ka xishoonaysid aniga ma aqaana hawiyow qabyaaladda odaga daaradoo puntland jooga ee dhaqaalaha muqdisho looga diray ugu socaynayo aadan ka xishoonaynin qabyaaladda qaadiid uusan ka xishoonin sheekh idriis uusan ka xishoonin hallays cafiye uusan ka xishoonin shiikhii indhahala uusan ka xishoonin baaruud uusan ka xishoonin odagooda aysan ka xishoonin gabadhooda ee adigu aad ka xishoonaysa hawiye adigaa lagaa rabaa meeshay ku geynayso dhaqankaasna waa dhaqanka xoolaha bahalka carunka cuna qaylo kuma tago xasan shiikow wallahi uusan farmaajo qaylo ku tegayn sheekh shariifow wallahi uusan farmaajo qaylo ku tegayn shalay ducaale oday daaradow ahaa waa wanaagsanaa laakiin ducaale hadduu oday ogaadeen noqday waa dembiile xataa daaradku ayakaa dembi iska gelaya ayakaa dembi iska gelaya ayakaa dhexdooda cadaalad ka shaqaynin adigaa cadaalad ka sugaya sidaa awgeed waxaan kuu sheegayaa ogow jaalla hawiye dad soomaaliyeed oo tima jilicsan oo shan dhuuban oo soomaaliya ayaa tumaal iyo boon lagu sheegay markaasay aqbaleen oy ka hadli waayeen oo ka dagaali waayeen allah ayaa dhexdaada magaaladaadii lagu siibay adigaa deggan kama aada qiiroon kama bannaan bixin kama hadlin sheekh somow naagla culummada dalladda culummada soomaaliyada madaxa u ahay gabaraan soo nikaaxnaaye aa layga celiyey habartaa nikaaxi walaashaa nikaaxi sheekh somow raalli ahaa walaashaa raalli ha ahaato laakiin sheekh somow laba dameer isku nikaaxi laba dameer isku nikaaxi diinna maxaad nikaaxinaysaa magacii allah oo wakiilka ka ahayd haddaa culamo tahay culamo warasatul ambiyaa waaye maantay meel nebi maxamed joogo oo warasadii nebi maxamed iyo dhaxalkii nebi maxamed nin maanta haysta allah hortiisa ma lagu siibi lahaa dulinimada waxaa ka mid a inaad qaadatid wax ilaahay ka caroonayo dulinimada waxaa ka mid a inaad qaadatid wixii lagu heshiiyey macnaha wixii lagu heshiiyey in qof uu baal maro aana raalli ka noqotid dulinimada waxaa ka mid a keliga in lagu cashuuro dulinimada waxaa ka mid a in aad maanta aamintid in nin siyaad barre adeerkiis ou yahay inuu cadaalad kaaga tago iyo nabad wallaahi waxaan dhigayn kuma tagay farmaajo ma laga yaabo farmaajo inuu nabad ku tago aniga wallaahi agteeda waa ka weyn tahay inaan ku celiyo ma rabo laakiin waa kuu xaqiijinayaa farmaajo magaalada muqdisho bustooladii qoriga ku haystaa nabad sugidana wiil abtigiisoo majarteen u dhiibtay oo xasuuqika ka qayb qaatay somaliland booliiska waxay u dhiibteen dhulbaanta nabad sugidana waxay u dhiibteen kulanajiis waa ninkii buufalo ugu fadhi kudirarka badnaa ugu caayda badnaa ugu gafka badnaa wallaahi bilaahi hawiye saan u galno iyo saan ula dhaqan u dhihi jiray kulanajiis buufalo maantana wuxuu ku yahay baalkii muqdisho ninkuu jooga nabad sugida jooga waay maqaar saar waay ninkaan leeyahy ninkaan shaqaalaw xasan sidaa awgeed wax kaloo kuu haray lama arko taliyaha ciidankoo la bedeshaa ku hartay waxaan rabaa marka inaa idhaahdo mar dhow waxaad maqli doontaan farmaajo markuu dhiiqooyinka noocan oo kala galo koox habargidara intuu u yeero hob yaa la dhisaa mar dhow waa maqli doontaa yaa hobya kuu dhisaaya ninkii habariji muxuu yidhi ee nimankii gumaystaha ahaa ee majeerteen ay ugu yimaadeen deegaankooda iyakoo xoole iyo gel inay ka qaadan rabaya dhac kufsi gabar baan ku siinayaa taydaan kaa qabi waaye halaan ku siinayaa tayda cadhadalaan kaa dhaqan waaye muqdishaad ka joogi weysay tii muqdisho uu kaa qaado kugu dilay culamo iyo caamaba waa ku bahdilay gabdhahagaa waddooyinku ku dhalay 3 sano ka hor ballanqaadkii uu ballanqaaday inuu waddooyinka furayo ayaa maanta u xiran sanadka soo socda maxaa ka sugaysaa dhuusa marree baa la tegey khayraa shaqa ka soo qabtay farmaajaa ka daba tegey macalin maxamuuduu kor u soo qaaday marnaas midna hoos u dhigaa midna kor u wadaa waa lagu dhammaystirayaa saacaduu isticmaalay xeefaan ridayaa xeefay u haystay in la ridaayo sacad inta xilka haysaa sacad waxay u haystay in xeef la ridaayo laakiin uma haysan in galmudug la burburinayo adinkaa idin magacaabayaa markii laga takhallusay gorod iyo say u daba socdeen wixii ku jiray meeshaas marka laga reebo fiqi marka laga reebo inta sacad dowladda ku jirtay xeefaa la ridaya farmaajo kula heshiiyeen markuu ka soo cararay oo dhuusamarab yimid cadaadow wuxuu dhiga baasto adinkaa madaxweynenka dhigaya saleebaan caasimaddii uu ka burburiyey saleebaan bacda marka uu isticmaalay maqaamaa idin siinayaa isticmaalka markuu ka dhameeyey macalin maxamuudaa la isticmaalay haddana
markii laga riday cadaad dhagay laga furaystay sacdan dhagiya laga furaystay maanta cayr haysataa nolol iyo geeri midna uma ogola sacad nolol iyo geeri meel u dhexayso uga tegi beelxayo walmowt salebaan nolol iyo geeri meel u dhexayso uga tegi cayrna nolol iyo geeri meel u dhexayso ku hayaa ciidanka xanan buuri lagu celcelinayo ee beriga laga tuurayo waa kuwa doorashada farmaajo uu qabsan doono magaalada muqdisho u qaban doona aku geela koofure maxaan ka hadlaa deegaan malihi maxaan ka hadlaa maamul goboleed malihi maxaan ka hadlaa oday wax garta malihi maxaan ka hadlaa sheekh somo naag soo nikeexinaya dalada culamada Soomaaliyeed magacii ilaahay oo la siibayna ka qiro waay dadka reer muqdisho oo islaamka sheeganaya ayaa intaas garan waayay waa ka fikir waayay waa ka hadli waayay waa ka banaan bixi waayay maxay ka banaan baxaan 2,000 oo qof inta laga dilay ayaa 500 oo gram oo farmaajo laga miiray lagu xusay waan sugayaa bil ayaa ka dhiman sanad guuridii Cabdiraxmaan Cabdishakuur 17 September waxaa ka dhiman hal bil waxaan rabaa in sanad guurida si fiican loo xuso si ay u badbaadaan على الأقل حتى هبرجي ذنبه هذا عيرك كلا أجروا ويسين وعيرك كلا إذا لا جروا وين هبرجي ذا كلا سيء بعد سنة هلا يلو وعيرك كلا سيء بعد سنة هلا يلو وهبرجي كلا سيء بعد سنة هلا يلو وشخصهم وكان غيب قال حسكاس هيدا الشيء يا مركا عاو حمسو قال أنا واحد حسوستي واحد دورشة دعاية مالي واحد دورشة أو دعاية مالي نيكو كل شيء جاي وجمال واحد حسوسه وحن إلهي إيه كبقى مالي حل مربو مدحوين مربو نين أي وعن كسو حرية نين أي الله عيرة أي دول دي سياد برا حرتي مركي الله حري سيدي أبتو قبر يان دلني يا قبر نجقبة وريا مريحانة يا أبتلو يهي نكي وحال يربلواي هي مدحوينها على قصص صحيح عفس إن الله فيديو لكن كان رأيي أن له حبسه سجل ور ما هايو محكمة ده لكيني وحال ينوكو محكمة ده مركل لجيو مريحان كي هذا هاي هذا محكمة ده وحان كعور سنة شرفت له إني يعفسه وده كان حسابته أحرى وحيد هاي أنا رأيي أن لا مريحان يبدأ ما يعني محكمة ده شرفت له محاك عور سنة انت واحد عايركي رأيا لي انت مريحان ابتئي سيديها تاجن مركي لفي او فيريو ويصير من ده ما انتم اللي قدلا قرابات الحين ماشي اوكي محكمة ده حكى عصيها ها محكمة ده دولة مريحان سوماها لبحني يا نو دحو لبحني نعل ورد كين كيال والله كعري والرأي الله لك وحوس الشيء بلا يقول والله كالعري والحرة طلعوا سيديو وابتو أنا كان معرف يا قبل أنا قربتي أنا قاعد نشين وهاي أنا اللي ولا ليالو مريحان لكن وحوس الشيء سامح وقول شيء هذا إنك حبسي وكل جرا حبسي ما نقول وتذكر حبسي قال له قلت له ولا له هذا وحلي قبل ما أقول له قد يا الربع محكمة شرفت له حكوا تسأل قولي حنيان لو ده يمل إلا بلا تكتي شو المل يديها ها ما مريحان أنا يدينا ها ما بقى أنا وين ووحكى ليه maxay ugu sheegi weyseen hadda xandha maxkamadda sharafta loo waxaan ka codsanay hadda mar labadii geey maxay ugu sheegi weyseen markii hore hadda anigu waxaan leeyahay dawladda farmaajo habarteeda u sheegto wax ixsan aniga isii sameyn wal ugu soo biira wal isoo gaariya laakiin saddex qodob hawiye maxaa uga dhahan Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Sheekh Shariif iyo Cabdirashiid Ali Sharmaarki waxay ka hadleen qalfoof badeeda badda Soomaaliyeed in labada dal oo dariska ay ka xisaabtamaan qalfoof badeeda wada hadalkaasna wuxuu ahaa wada hadal qalfoof badeeda looga wada hadlayay ee wada hadal bad lagu iibsado ma Kenya haduu bad ka iibsado Cabdiraxmaan Cabdishakuur markuu dhex joogo lacagteeda nasiib dhiileen dawladda Kenya stupid miya bad ma la iibsadaa حسن شيخنا الدعوة ذوقي مكاسي كي ترى الدعوة يان لفورن ولا فرها ويلي تي حسن شيخ سعودي محايل لبدا الدولة دود لبدا الدولة دود حيسكوشين ما فليكرتو محكمته لكن ما انتي مو واحد امنتي جال لهوي اني دارد مال هدلاي جال لهوي ما انت مو واحد امنتي ان دولة كي الدعوة دي بدك سنة ما اذا اود ما اذا اسكال محكمة ديك والقوة ده الشيء فرماجنا وحو كسي حجال ودني ضميركم كا قراعي مقحي إلهي وكو هرجيدي
masaajiduu sanami hor dhigay war caydiid aa maraykan la dagaalay hal loo sameeyo taallo farmaajo u sheega sacdow cayr ha ka sugunina u sheega intaa isku raaca walba meel inta u xirtaan xamar ka mida caydiid surac waa awoodaani sacdow intaa sameeye cayr waxaan dhihi lahaa generaal goobaan lenima ahayn ma hayne generaal goobaan la taallo u dhisa adinkana u dhisa taallo meel kasta ugu dhisa generaal goobaan la taallo salame adinku nin goobta doo yaalay waxarkin ha aadee saruur waaba la dayacaba shabaababa haysta ayaka dhanba inay habargeed ka baxaan maxaa u diidaya saruur maxaa u diidaya ma u maqantay ma u gurmati maqaamaan rabaa aad ku haydaa farmaajan taageersanaad dhusumreeb la fadhisaa waxaan rabaa marka inaan kusoo gabagabeeyo nuxurka warkaygu wuxuu ahaa sheekh soomow oo culammada soomaaliyeed wakiilka ah magacii ilaahay oo la siibayo inuu ka qiiroo waayo gabar uu soo nikaaxana uu ka qiiroodo bilcagsi waaye maaha warahatul ambiyaa nin maaragtay nebi maxamed matalaya magacii ilaahay oo la siibayo sanam lagu bedelayo inuu ka caroo waayo ee uu gabar lasoo nikaaxaya ka caroodo doqonay dabkaaba kuwa sugaaya cabdiraxmaan cabdishakuur farmaaj mankii dhihi jiray sheekh shariif xasan sheekh maxamuud cosable kuwa lamidka ee sugaaya doorasho anaa idin sheegaya ilaahay waxaan ka baryey xasan sheekh iyo sheekh shariif oo qori wata iyo anoo qori wata oo meel balca duurkeedaa joogno inaan isku warsanno ilaahay waa i gaarsiin karaa sheekh shariif qoriga si fiican u qabso aan leeyahay anna baalkii samankeyga aan wato xasan sheekh ma oontay haa qoriga si fiican u qabso khasnadahana si fiican u cabayso cabdiraxmaan cabdishakuur waa dheer tahaye adigu maaragtay 75 garabka saaro nin xoog lahaa tahaye wallaahi inta goorta taasaa idin roon allowma idinla teliye wasalaamu calaykum waraxmatullah maxaan hawiye kala hadlaa in badan la hadlay ma fahmini reer gurceelow ma maantaa fahamteen in balanbal iyo reer gurceel markii laidin lahaa ay dembi eed oo laidinka saarayey oo laidinka titirayay qaaradda maanta maa garateen balanbal marexaan ma laha waase leenahay maantaa bilowdeen 3 sano ka hora lagaa yeeshay waryaa gurceelkaa ku har hawiyaa tahay caqli malid xoolaa tahay sambaloolshe waa salaamayaa keligiis sambaloolsho waa ku salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu